بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أصحابتي إذا سود دواد شرفتي قيمها لما شاء الله تبارك الله وفاعل خير مركلة waxaan rajeynayaa inaad nabad qabtaan oo fiicantihiin bashbash iyo barwaaqo ilaahay idin guuleeyo guul iyo gobonnimo maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ilaahay idankiis waxaan maanta doonayaa inaan ka hadlo qiso arrin maalmood aan meel kala kulmay ayaan doonayaa inaan oo xaqiiqo ah inaan idinkaga sheekeeyo. Marka waxaan rabaa arrintaas dadka aaminsan inay maaragtay qalad weyn inay ku jiraan ummadda Soomaaliyeed isma lahayn sabankan ayaa maaragtay waxyaalaha noocaas oo kala ah ay aaminsan yihiin isma aana lahayn. Marka walaalayaal waxaa jirta ilmo yar baa iskuul ii bilaabay high schoolka dugsiga sare saa u taqaanid ama high school saa u taqaanidba ayuu ii bilaabay. Marka cunuga inta ugu horeyda waa ku cusub yahay waa in meeshii la geeyo. Soomaali badan oo ayaguna ilmo keensata ayaan ku kulannay marka iskuulkii maadaama waddanka Ingiriiska safety-giisa xoogaa maaragtay xagga ilmaha aad baa looga baqaa. Marka waa in ilmaha la keeyo oo iskuulaadkii maxaa tiraahday lagana kaxaysto. meeshii baan Soomaalida ku kulannay marka waxaan ku iri marka dhowr maalmood geeyay waxaan ku iri maalintii dambe caruurtan u soo diraahay ka waaweyn walaalihiisi ii fiiriyo hadda wiilka maaragtay walaalihiis ii haleeshiye oo maxaa kugu dhacay dumarkii Soomaalida oo maxaa kugu dhacay ma imaanays miya ma imaanay shaqan leh waxaan ku iri saasay soo kala haadeen dumarkii shaqan leh oo ma waxaad ka mid tahay naagaha waashay oo shaqeeya hadda kelmad kale ma leh ma waxaad ka mid tahay naagaha waashay oo shaqeeya aniga waa yaaba waxaan iri bismillaahi raxmaani raxiim ilaahuna waalid walciyaadu billaahi war ma ana waalin ma maxaa waalida aad sheegaysaa subxaanallah haddii la shaqaysto ma la waasho naagaha waashay oo shaqada ku waashay oo maaragtay waa wax haddaad u fiirsatid Soomaalida ama gaar ahaan dumarka ama dadka masaakiinta ah oo maaragtay la buulgareeyo waxyaalaha lagu buulgareeyo ayay marka dambe cabaan ayay saa ku qaadanayaan. waxaan ku iri markay ugu dhaheen naagaha waashay miyaad ka mid tahay anna waxaan ku iri kelmad u dhigantoo oo ah allah oo adinkuna weli maxaafiisyada dowladda tuugsatiin yaa waaba yaabe ma weli ma tuugsigiyaad xaafiisyada dowladda aad ku jirtiin baan ku iri waa laga baxa 20 sano naagahaas joogaan qaar baa ku dhahay 20 sano joogna qaar waxay leeyahay 24 sano joogna waxaan ku iri stiilna shaqo ay shaqeeyaan iska daaya waxay la yaaban yihiin maxaa tiraahday gabar shaqaysanaysa ba la yaaban yihiinba ma naagaha waashay kulaha war haddii la shaqo tago oo la soo shaqaysto waddankan Ingiriiska waa laba mid inaad shaqo tagtid iyo inaad tuugsatid labadaas mid ka dhaxayda male haddaad xanuunsan tahay oo ilaahay kuu gartay oo aad xibnahaaga maaragtay aad la'dahay dad xitaa waxaa la arkaa lugahala oo caddaan ah oo ajnabi kala oo Soomaali aan ahayn laakiin gacmaha wax ka qaban kara oo shaqaysanaya la arkaa laakiin abkow Soomaali waxaan ku iri gacmaha wuxuu ka qabtay iska day isagoo caafimaad qaba ayuu wuxuu arkaaba qofkii dumareed hadday shaqaydo inayba waali tahaba waxaan ku iri weli ma tuugsigiibad ku jirtiin weli ma gacanteed hoorsanaysiin shaqa waa sharaf ilmaha anaga hadday noo kareen oo iskuulka cunuga ugu yar oo full time kaa bilaabo waa inaad shaqo tagtaa waa inaad thank you very much aad ku tiraahdaa dowladdii laakiin 24 hours dowladdii inay adigiisay kuu biile in ilmahaaga kugu weynaado oo hadhow ilmahaaga guur heerka uu gaaro stiilna aad cayr qaadanaysid stiil aad gacan hoorsanaysid ayadoo gaalada waxaan ku iri wallaahi baan kuugu dhaartay 6 bilood ilmihii 6 bilood iyagoo jira yaa ayay inta meelo geeyaan maaragtay la nursery home ayay maxaa tiraahday shaqo tagaan waa hadda 6 months waa 3 months waa 1 year annaga maxaa naga qaldan annaguna waxaan leenahay maantii waalatay oo shaqo tagta marka dadka noocaas aaminsan dumarka noocaas aaminsan kolley waa abuse ama bullying nimanka ugu buulgareeyeen waa naaga waalan oo shaqo tagay waa naaga waalan maxaa waali iyo shaqo isku keenay qof waalan miyaa shaqay kara qof waalan xabsiyada maaragtay waxa lagu hayaa meel lagu dejiyaa lagu hayaa sidee u oran kartaa qof shaqo tagay inaad shaqo tagtid haddaad shaqo tagin macnaheed waxa waaye inaad tuugsatid xafiisyada dowladda istaagtid
maxaad oranaysaa ma shaqeeyo waa wacaysaa hadda lababa tegi karo waagi hore la dhooba jiro kuyuu loo geli jiro hadda telefoon aad dira maanta dhamaa ku dheganta 3 saac 4 saac telefoonkii wait call uu ku leeyahay saa sugaysa ma ka heshin ma shaqo tago waxaan rabaa waxaan ku noolaada iyo guri karis in laga baxsho tuugsi maaha waxaan ku noolaadaan rabaa inaad xafiiska dawladda aad ku tiraadid tuugsi maahan miya markaas dawladdu maxay ku leedahay soo intaas form soo buuxi intaasoo bilood sug weliba waagi horaa la roonaayo hadda sheekadii waa adkaataan ku idhi maadaama waddankii corona uu dhinac kale u gadiyey dhaqaale yari ay dhacday university credit wax la yidhaaha la galay qofka ugu yaraan intaasoo bilood ayuu sugayaa ma garata markaasaan waxaan ku idhi markii lagu siiyo weliba waxaa lagu leeyahay intaas in dheeraada hadday ku soo gasho yaa oo lacag ka dheeraada ay ku soo gasho noo soo sheeg ma garata haddaad shaqo tagtidna noo soo sheeg waana inaad shaqo tagtaa haddaad caafimaad qabtid waa inaad shaqo tagtaa baa lagu leeyahy marka abbay heeley hooyaan ahayoo waxay ku marmarsiinaysaa ayadoo ilmihii baan hayaa kow abbow heelow oo laisku qoran yahan waxaa laleeyahay shaqo tag markaas wuxuu samaynhayaa taxi yar unta meelaha lasoo warwareego yah oo lacagta qaarna qarsho wax yarna sheego ayuu leeyahy intaana isoo gashay markaasaa lacagta carruurta la siinhayaa maxaa tiraahday lacagtiisiina ugu yaraan 3 markii loo dhigo 2 wuu qariyey waa been halkaas reerkii been baa soo gashay beentana waad ogtihiinoo waa xaaraam oo diinta islaamku waa naga xarimtay abbow taxi oo dhan nin taxi ku shaqaysta oo faamilkiisu ay jeel taxi credit ay qaataan lacagta carruurta ay qaataan waa nothing waa beenlow ninkaas waayo markii aad maxaa tiraahday taxi aad ku shaqaynaysa lacagta kusoo gasho dhan haddaad sheegtid lacagta carruurta waa lagaa goynayaa waayo nimanka tagaa sida ku shaqeeya lacag badan ayaa soo gashay ma garatay guri walbana dawladda waxay ugu tala gashay lacag go-an ayay dawladda ugu tala gashay ma garatay beentaas odagii kuu qarqarin adna lacagta carruurtaad qaadan waxaan ku idhi dumarka maa dhaweed haye oday ma kuu shaqeeya miya dee odagu ay shaqeeyaa laakiin odagu ma kafay karo kiradii iyo biilkii maxaa naagaha maaragtay excuse me baan ku idhi adig odagaa ma shaqeeya haa marka lacagta carruurta ma qaadataa haa dee lacagtaas tuugsi maahan yaa kuu ogolaaday inaad lacagta carruurta qaatid aniga hadda haddaan ta fadhiisto aan abalgareeyo xaq baan u leeyahay ugu yaraan 3 carruuraha laygu siinayaa 3 way baronroonaad laakiin 3 yar waa laygu siin ma garat marka laakiin maxaan ku falayaa waa lacag control ah intay dawladda isiinayso ka badan 2 jibaar 3 jibaarkeedan qaataa oon kusoo shaqaystaa gurigayga iyo reerkayga carruurtaydina alxamdulilah shukra bilcaalamiin ilaahay caafimaadka ii siyaajay waan haystaayoo maarata waan ka warqaba ilmihii inaan shaqo u kalahayo u jeedaan anigii ayagu ay cabsanhayaan oo haddii shilin dheeraada soo galo waxay isleedahay dawladda way kusoo ogaanaysaa oo dawladda waxaan ku idhi bangigooda dadkaas 10 pound oo dheeraada kuma ridi karta hadday sadaqa ku weydiido hawaaye bangigayga cayrtiya kusoo dhacdo dawladda ay arkay ay ku leedahay annagana waxaan ku idhi kumanaan baa lagu soo diraa because we are free because waxa weeye qof bad waxa weeye under control baa ku jirta waa lagu controlayaa yah waana tuugsanaysaa because markaad tuugsanaysa waxaad tiri waxaan ku noolaada ma haysto marka dawladdu waa inay ogaato maxaad tiraahday in lacag kale kusoo gashay in kale dad badan baa lagu qabtay qaar badan jeelka loo dhaadhacshay ma garata marka inaad waali ku tilmaantaan lacagtii la shaqaysanhaya ee shaqadii sharafta laheyd oo reerihii shaqaysanhaya oo dawladdii canshuur soo gelinayna oo annagii canshuur celinna loo samaynaya hadday lacagtanadu ay yar tahay oo cid ku dhahaysa dayn baan kugu leenahay iyo offer payment aan kugu leenahay oo lacag inkastaraha ayaa dawladda kaa soo raacday ma jirto dadka noocaas oo beenaha ka daba wareega waxaan kuli lacag inkastaraha lagugu leeyaa laleeyahay maantana lacag daynhay gudayaan wixii la siiyo dibay u gudahayaan because dawladda inta u qayisho oo u fikirto ay waxay leeyihiin ayaan markii la joogaba maya lacagtii guriga laynkaga baxshay xaq umaadna lahayn markii 2 sano ka soo wareegto sanad heblaaya soo celiya lacagta noocaas ninkaagaa lacag inkastara shaqeeyey marka lacagtii carruurta laynkugu siinayay waa inaad soo celisaan you understand at least xitaa ma samayn karaan inay guriga kiradiisa iska wada baxshaan oo ay dhahaan guriga kiradiisa iska wada bixinaynaa lacagta carruurta leh laakiin waxay leeyihiin guriga kiradiisana hanal ka baxsho lacagta carruurtana waan qaadanaynaa maxaa tiraahday waxaa la qarinayaa oo kale lacagtii ii sheeg ama masaajidda laga qaadanhayo oo qur-aanka lagu qaato waa la qariyaa midda waxaa la qarinayaa taksiga waxaasoo dhan haddaad at least aad wax qarinaysid iska badaayo dawladda free ka noqo oo ka lug bax laakiin saas waxu walaaqana dawladda still way ogsoon yihiin way og yihiin laakiin waxa weeye hadda waa dawlad oo maaragtay markay hadhow ku qabtaan lacag aad u fara badan wax yar markay arkaan
way og yihiin qofkan inuu maaragtay meelo badan wax ka soo galgalaan qaar badan baa tagaasiilayda ayaan dhexe markii hadda la fariistay oo dowladda ay bandowga magaalada kusoo rogtay ayaa tagaasiilayda la yiri lacag taxiga laynka goynaya ee laynii soo celinaysa waxaa la yidhi soomaali badan oo rag badan ayaa yaacay taxiga saa la yidhi registerba ma tihidba ragna iyagoo fadhiya ayay cunahayeen aan badnayn hal iyo laba ah say u badnaayeen waxaa lagu dhahaa no maba tihidba register abawhelow wax qarqarin haya naagtiisana wuxuu ku qanciyey si aysan naagaha shaqaysanayo ugu dayanin way waalan tahay naagtaas markaasi hadalkii intay cabtay kuula imaanaysaa naagaha waa shay shaqadu waali maaha laakiin waali waxa ah qof caafimaad qaba oo been ku shaqaysanaya qof caafimaad qaba oo aan shaqo tagaynin shaqooyinka waddanka waa shaqooyin fudfudud ma garatay iskuul baad soo kilin gareen xafiisaad soo kilin gareen adoo xijaabkaaga wata maxaad tiraahday qof waayeelaad usoo shaqayn oo meelaha waayeelada loogu shaqeeyo ayaad haddaad dumartaa qaybta dumarkaad gelaysaa ood ka soo shaqaynaysaa hadda alxamdulilah ajensiyaal badan oo soomaaliyahaba hadda jiraba oo choice aad leedaho dhihi kartid xitaa maya aniga dumaraan ka shaqayna laba waayeela hooyo haddaad usoo shaqaysid yaa qaar baxay ku leey xaar miyaa la tirtiraya oo adigoo markaad isbitaalada aad ku dhalayda xaar iyo kaadi iyo dhiig iyo qashin oo dhabaa lagaa tirtiraa who are you isbitaalada markaad ku dhalaysid dadka saa noo keergaraynayo oo qashinka saa nooga dhaqahaya ma ahan ayagu bili-aadan miya waryaa hooy isku xishooda xaar miyaan tirtiraya ayay ku leeyihiin xaar miyaan tirtirayaa maxaad u tirtir weysa qofkan waa qof bili-aadana caawinaadu u baahan yahay haddaad maanta lugaha iyo gacmaha aad beeshid yaa soo uma baahnid in qofku bili-aadan oo ku caawiyo marka adiga hadda maxaa u diidaysaa how many hooyo soomaaliyeed ama aabba soomaaliyeed oo xaarka iyo kaadida laga hoos qaado oo xafaayad loo xira how many markay xoogga lahaayeen hadday dhihi lahaayeen ka warar amaba dhaheeni maxaad xaar miyaan soo tirtirayaa waxaas caqli maaha you have to inaad fakertaan gaalo excuse me human being are nas asxaanka in dadka loo sameeyo dadkas akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmo qof waxaa tahay qofkan bili-aadanka u gargaara dadka bili-aadanka dadka u gargaara qur-aankay ku jirtaa yah justi waxaa lagu diiday haddaad dumar tahay inaad raggii ka shaqaysid haddaad rag tahana aad dumarkii ka shaqaysid haddaad isbitaal joogtid waa gooni taas oo isbitaalka qofkii naftiisa aad badbaadinaysid ma fahant laakiin markaan kale oo joyce leedaho oo shirkadii aad u shaqaynaysid kabaniyaal badan oo soomaaliyaha jira iyo kabaniyaal badan oo muslimiin ah maxaa tiraa waxaad dhihi kartaa wayba ku qoranta foomanku wayba ku qorantaba ma female baad u shaqaynee mase meel baad u shaqaynee ma raga u shaqayne mase dumar tig waxaa siisatid hadhow waa ku doodi kartaa aniga waxaan rabaa inaan dumar u shaqeeyo ingiriiska jaaniska yaalla iyo wanaagga yaalla iyo naxariista taalla iyo ilaahay sow noogu cabiidiyey alxamdu alshukr rabbilcaalamiin laakiin aw ciddi fahmi lahayd xafiisyadii dowladday tuugsan hayaan wax yar oo kooban oo lagu cariiriyey ayay qaadan hayaan cariiri ma fahant war waxaan qaadan jirnay laba jibaarkeedaan qaadanaa sharaf iyo qiimana waan ku noolna canshuur celin waa naloo sameeya waddanka canshuurana laka gooya dad magac iyo sharaf lahaana laakiin abbaay cayr qaadatooy shaqadii waali ku tilmaantooy maskaxdaada fur maskaxdaada xorey maskaxdiina xor ma ahan maskaxdiina xoreeya dumarow ilaahay ka cabsada isku xishooda shaqadana waaliha ku tilmaanin shaqadu waa sharaf weeye beenta aad wax ku qaadanaysaana iska daaya iyo qashinka xalaal wax ku qaata ninka ku qaba u sheeg oo waxaad tiraahdaa xalaal gurigaa xalaal soo geli dheh si ilmuhu u badbaadaan xalaal soo geli si ducadanada because ilmihii baad u ducaynaya ilaahayow awlaada iyo nabad yeel ilaahayow galabta nabad iigu caawa nabad ku soo hooy ilaahayow maaragtay adaa arkaayo anigu uma jeedee ilaahayow balaayada iiga qabo ilaahu macallinka xun iiga qabo ilaahu ardayga xun iiga qabo ilaahu jidka taakaa dhugle ku soo marsii ilaahu gurigiisa nabad ku keen ilaahu baari iiga dhig ilaahu ehlu diin ka dhig ilaahu ehlu qur-aan ka dhig ilaahu maxaad tidhahdee ehlullaahi ka dhig baryaas laga aqbala ma rabtid marka baryaas lagaaga aqbala haddaad xaaraan cunaysid oo dowladda aad been u sheegaysid isbitaalka waa idin free maxaad tirahdayay waxyaalo badan baa noo free ah markaasaad haddana been usii sheegaysaan dowladda soomaaliyey ilaahay ka cabsada markaasaa qofkii shaqaynayana aad ceeb iyo istiinbara rabta inaad ku dhejida xaarkaa la dhaqaa kaadida la dhaqaa because waa sterliil xaarku waa sterliil weeye you know sterliil lacagta ingiriiska ayaa sterliil la dhihi jira xaarku sterliil weeye lacag weeye kaadidu sterliil weeye waxaan ku yidhi sas markii bangigaaga ugu soo daadato
jirarararag ood message saa u akhrisid maasha allah xaarba masaa kuu muuqanayaba hadha waxaan kuri xaalka saasad u maleefsan soo mileefsaa baa la yidhahda soo he soo mileefsamay aad ma aqaan magacabaaba la yidhahdaa ma fahante gabayo iyo heese iyo bananburrana waan ka tiri doonaa waan ka soo saari doonaa marka dadka waaweyn waaba iyaguna wayba jecel yihiin dumarka soomaalidu inay u shaqeeyaan waa dad nadiif ah dumarka soomaalidu because waa dad lasoo wada tababaray hooyooyinka soo wada tababareen markaasaan gurigooda markaan tagno naf waxaan ku yidhi guryahooda wax ka wasaq badan guryaha u nadiifinaa ayadoo dhan saasaan u nadiifinaynaa markaasaan hooyadii waxaan ku yidhi halkaan qurux badan kursiga saanta ugu fariisino cunto wanaagsan siino ma fahante ilaahay ka cabsada shaqaysta oo shaqo taga carruurta saa markaad iskuulka aad u geysid 2 saac cunuga ugu yar xitaa kuwa yar haddaad haysatid waa lagu haynayaa ya dowladda kaa bixinaysa haddaad maarata aadan iska bixi karaynin at least ilmuhu maday kuu yaryaryihin wax baro oo luuqadda soo baro si aad u shaqo tagtid aad iyo aad baad u mahadsan tihiin marka walaalayaal arrintaasaan rabay inaan ka hadlo shaqada marka dadka in la ceebeeyo ma ahan dumarka shaqaysanahaya waa in la yidhaahdo hero hore u socda cuqdada nafsiga maaragtay ay raggu ay qabaana dumarkow intaad soo qaadataan naaga xumay daaca ninkeed ley ha nagu noqon dumarkana ha niyad jibin mana niyad jabayso naag dee lacag saa u shabinaysa maxay ta adiga markii cunug kaa weynaado cunugu 17 kaa gaaraba lacagta wayba kaa yaraanaysaa laakiin maasha allah annaga wayba noo sii badanaysaaba because waxa weeye canshuur celin baa laguu samaynaya waqtiga canshuurta la gaaray April markii waddanka la xisaabsho lacagtiisa waxaa la leeyahay qofkan inkamkiisa xoogaa wuu yar yahay dowladdana lacag kama qaato jig waxaan ku canshuurta lagaa gooyo kala baraa laguu soo celiyo yaa ka fiican maasha allah tabaaraka allah waddankiina magac baad ku leedahay iyo dowladdii waxaa la leeyahay qofkan waa qof soo shaqay jira oo systemkii dowladdaad ku jirta lacagta aan shaqaynaynaad iskuulada aad maaragtay iskuulkiibaa kuu fariya isbitaalkiibaa kuu fariya waxaas waa canshuurta aan shaqaynayno annaga iyo kuwana lamid ah markaasaad ceebaynaysaan shaqadu waa sharaf ummatul islaamna maaragtay inay shaqaystaan oo qofku gacanta kore maxaa la yidhi rasuulku muxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam gacanta sare iyo gacanta wax qaadanaysa fiiri gacanta bixinaysa iyo midda hoorsanaysa ayaa dulaysan midda bixinaysa ayaa khayr badan baa layidhi annagu waan soo shaqaysanaa waan bixinaynaa ilaahay baa na siiya iyo kabniyaalkan u shaqaynayna ilaahay ka sokoow waan bixinaynaa awlaaddeennaan siin waa xalaal ah annagay cunayna waan sadaqaysan laakiin abkow beelow tuugsi iigu rid waxa cuno ma haysto ilmo yaryara haysta ma shaqaysan karo waad shaqaysan kartaa shaqo tagnaayaa nacas yahay ninkan beelowga wuxuu kuu qarqariyo oo ku yiri taksiga intaasa ka shaqeeya dowladdaas oo been kuu soo xareen naa liisa runta u sheeg waxaad tiradaa beeni walaalu ha ii soo xareen dheh sida ay tahay u sheeg dheh guriga kiradiisa isagu si toos ha u shubo aliista lacagta carruurta si aad xalaal ugu qaadatid adigana wax baro fadhiga ka kace intaad maatatatataca telefoonku dheganaanay maanta dhan hadhowna aad dariiq la soo istaagaa naagaha go-aanshay oo maaragta aan miya ku jirta naagaha go-aanshay maxaa waalay qof shaqaysanayo sharaf leh waaliba yaa ku yidhi waa la waash ma waxa waalan qofka tuugsanayo gacanta horsanayo isagoo caafimaad qabo dhahay waxaan cuna ma haysto aniga ilmahayga waa baktinayna mise qofka inta la bistay kaarkii aydhiya kaarkii xirtay meeya aydhiya kaarkayga meelaha noogu jiray you see kan waa mid kale kaygii haddana ku shaqaynaa service ay ku qorneed xagga kale iga yaalaan waan idin tusi doonaa insha allah kan waa ku kale ilmaha disablekaan ku qaadi jiray you see waa kaa masawirkaygii ujeedaa waxaan ku yidhi halkaanu ka go-go-ay markaad ilmaha kaxaynaysid halkaasaad gashanaysaa sharaf markaas waxaad dareemaysaa adiga dhan inaad sharaf leedo maasha allah tabaaraka allah waa because waad qof shaqo tega baad tahay markaasna waxaan ku yidhi dadka waxay naga aaminsanaayeen hindida iyo dad tuugsaday maogta because hindida agteeda markaan marayno kaarkanaga saa u toosinaynaa kaarkanaga saa u toosinaynaa saan u tusno inaan shaqaysano excuse me waan ku faanaa adna waxaad leedahay waali hadda kan disableka waan u shaqay jiray laakiin waan ka tegay maasha allah shaqo kale oo ka lacag badan hela midda labaad ilbaxnimo badan aad helaysaa intaas ummadood la shaqaynay tareerinaad qaadanaysaa markaas waxaan ku markii tareerimada lagu siiyo cilmi badan baad aad faa'iideen xitaa wixii carruur ku saabsan ama dadka waaweyn adigiyaaba xataa gurigaagii iyo ilmahaagii ayaad cilmi la soo hooyanaysaa
iyo dadka iyo waddanka iyo waxa maarta sida loo dhaqmaa laakiin abkay fadhidooy abootay fadhidooy waxba ma kala ogid say uga timid from Soomaaliya maaragtay from London sidii inta albaabka ka soo gashay ku xiranta waxaa la yiri ilmaha laga qaadaa waa waale waa ka dhac ha iswaalin hooyo tahay naaga gurigoodu inay joogaan naaga waa inay shaqaystaan sheekadu tuugsi iyo shaqada ay noqotay shaqo ya shaqaan ku soo koriyo aad iyo aad ba mahadsantiin jazakallahu khayr waxaan idin ka codsanayaa channelka subscribe share and comment asxaabta dadka caayaha iyo shaqadana u gudbiya please hala shaqaysto xitaa youtube-ku waa shaqo ma garateen xitaa youtube-ku waa shaqo youtube furo si nidaam la usoo fariiso dadka wixii idea wanaagsan ah oo ilaahay iyo maaragtay iyo rasuulkiisa aan ka caraysiinaynin oo ilaahay iyo rasuulkiisa ayna dhehen calayhi salaatu wasalaam ku salli rasuulka yaa u sheeg ummadda maxaa tira haddaad garanaysid wixii idea oo maaragtay maxaa tira aan ii sheeg aan maxaa tira hadayay maaragtay waayo aragnimo ah oo aad leedahay dadka u sheeg ma garad youtube-ka xitaa waa shaqo lacagtii ugu horreyd aniga shalay ii soo dhacda maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah dhaha dee maasha allah dhaha aniga waxaan ku yidhi waagi hore video baan iska gelgeli jiray laakiin youtube-ka markaad rabto in lacag lagaa siiyo waxaad gelinaysaa everyday laba video ama 3 video waad gelinaysaa groupku fiirsada haddaad heshid ugu yaraan 50 qofood kaliya xitaa oo kugu xiran haddaad heshid waxaan ku yidhi bil kasta lacag ku soo daadanaysa aniga juun ayaan xoogga saara juulaay iyo august weliba juun xitaa saas ma ahayn juulaay iyo august aan xoogga saaray shalay lacag baa ii soo dhacday maasha allah tabaaraka allah marka walaalayaal ilaahay dadka cabsataan shaqaysta online-nada ka shaqaysta youtube-ka iyo maxaa tiraahdaa google-ka youtube-ka google-ka ayaa maartay baygareeya marka google-ku lacag buu baxshaa youtube furo halkaas waxaan ku wax wanaagsan soo gudbi ya adoon qaawnayn oo maarta aan magaciisi ahayn aad iyo aad baad mahadsantihiin jazakallahu khayr anagu wanaagga ayaan dadka ku dhiirigelinaa iyo shaqada iyo khayrka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh